fanaanka Grand B ayaa doonaya inuu noqdo laba xaasle xilli uu ku guul daraystay inuu sirsirto qaranjada reer ku dufawaaq waxa soo shacbahay jacaylkii qarsoodiga ahaa ee uu la waday fanaanad u dhalatay dalka Senegal xaaskiisa Edexioya ayaa ku xujeysay inuu u saxiixo warqad uu ku cadeynayo inuusan la guursan doonin halka isaguna uu ku dooday in sharcigu u ogol yahay guurka laba haweena iyo wax ka badan waa fanaanad 48 sano jir ah oo u dhalatay dalka Senegal waxa loogu yeeraa Andela Misugu Senegales faraantiga uu u geliyay fanaanada heesaha hip hopka ee Jolaf Band danaha siyaasadeed ee ku khasbaya inuu guur ka badiyo iyo horumarka ay gaarsiin karto fanaanada qoyska siyaasadeed ka soo jeeda ayaan warbixintan ku qaadaa dhigi doonaa falowde boga Maxamed Muuse Tarsan haddii aad nala socotay like saar muuqaalkan siina faafi mahadsanid fanaanka barta yar ee Musa Sandiana Kaba ayaa dhex dabaalanaya mawjado jacayl iyo maayado dhaqaale doona tan iyo goortii Masir kala geeyay xaaskiisa Edexioya oo ka carootay xiriirkii Senegal ku soo dhex maray mid ka mid ah gabdhaha fanaaniinta ah ee qaaradda Afrika loogu jecel yahay fanaanka Grand B ayaa bilooyinkii u dambeeyay jacayl qarsoodi ah la jilayay fanaanada reer Senegal ee Viviane Chidid oo bishii hore ay jawi cudoon ku soo wada qaateen jasiiradda lamaanayaasha ee Usha Beni oo loo yaqaan jasiiradda dhamaadka adduunka taasoo ku taala dalka Faransiiska halkaasoo ay ku wada galeen axdi jacayl oo faraanti la isku geliyay jacaylkooda ayaa soo ifbaxay 24 bishii July markii fanaankani uu bartiisa Facebook soo galiyay sawir ay ku heliso fanaanada Viviane Chidid oo uu soo raaciyay qoraal dabka ku sii shiday xaaskiisa maadaama uu qarsan waayay xiriirka kala dhaxeeya gabadha reer Senegal markaasoo uu ku soo dul qoray habeen wanaagsan qoyskayga waa aniga iyo gabadha ugu macaan magaalada Dakar Viviane Chidid waa fanaanad 48 sano jir ah oo u dhalatay dalka Senegal waxa loogu yeeraa Andela Misugu Senegales ama boqorada fanka ee Senegal codkeeda dabacsan jaaheeda qurxoon iyo jiibteeda qoobka ciyaarka ayay ku noqotay xidig hogaamisa kooxaha raabka iyo hip hopka ee Jolaf Band oo ah kooxda faneed ee loogu jecel yahay wadamada Afrika ee Faransiisku uu gumeystay fanaanada Viviane Chidid waxa dhalay aabe reer Lubnaana oo lagu magacaabo Philippe Chidid iyo hooyo reer Senegal waxay horey u soo guursatay Bouba Ndour oo ah abwaan iyo musician reer Senegal ah kaasoo ay u soo dhashay 2 caruur haweeneydan waxa sodog u soo ahaan jiray fanaanka aadka loo qiimeeyo ee Youssef Ndour oo markii dambe siyaasadda u xuubsiibtay kaasoo soo qabtay jagooyinka wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska ee Senegal iyo wasiirka dalxiiska iyo madadaalada intii u dhaxaysay sanadihii 2011 ilaa 2013 ilaa uu markii dambe u tartamay xilka madaxweynaha dalka Senegal fanaanka Grand B ayaa muuqaal ay ku heliso Viviane Chidid waxa uu ku sheegay inaan loo baahnayn masiirka xaaskiisa modelka ah ee Edexioya maadaama sharciga dalkiisu uu dhigayo inuu guursan karo laba haweena iyo wax ka badan muranka qoyskeena waxa sabab u ah fiidiyowgan oo jacaylkaygu ay sheegtay inay igaga tagayso xaqiiqdii waxaan jeclaan lahaa inay ila joogto waayo waxa la ogol yahay in ninku uu guursado in ka badan 2 dumar runtii ma u maleynaysaan inay ku saxan tahay go'aankeeda ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay fanaanka Grand B ayaa ku guul daraystay inuu xaaskiisa ku qanciyo lacago masayrtir ah oo uu doonayay inuu mar kale ku soo xirogeliyo waxayse ku xujeysatay Edexioya inuu u saxiixo warqad maxkamadeed oo uu ku sheegayo inuusan la guursan doonin taasoo noqotay xujadii ugu adkayd ee fanaanka la hordhigo Alfanandoli ayaa 2 mas'alaba u doorbiday guurka Viviane Chidid mar waxa uu doonayaa inuu salka u dhigo xaaskiisa Edexioya oo masirkeedu uu aad ugu batay marka labaadna waxa uu doonayaa inuu fanaanada Viviane Chidid uu ku helo xulafo siyaasadeed oo ka qayb qaadata kamara dhalinta hanka uu ka leeyahay kuraasta sare ee dalkiisa Guinea Conakry Viviane Chidid ayaa Grand B ka gacan siin kartaa inuu guul ka gaaro doorashooyinka madaxtinimada dalkiisa maadaama ay saaxiibo ku dhex leedahay safiirada wasiirada iyo siyaasiyiinta xildoonka ah ee dalalka Senegal iyo Guinea Conakry fanaanka jooga yar ee la hagaasay Brogerian Desiska ayaa u hanqaltaagaya inuu guri wada dejiyo labadan haweenka ah ee hadalhaynta badan ka dhaliyay baraha bulshada waxayna arintani muujinaysaa inaan kartida iyo raganimada lagu qiimeyn karin dherer gaabnimo ama in kale oo nin lagu takooro